waayadii dambe waxaa gudaha dalka ku soo badanayay dhalinyaro la imaanaya hal-abuur ka yimaada maskaxdooda iyadoo la wadaagayay qaybaha kala duwan ee bulshada. Cabdirasaaq Axmed Jaamac Wadani waa nin dhalinyaro ah oo ku nool Garowe waxa uu cilmi baaris ku sameeyay caqabadaha ardayga soo wajaha waqtiga uu dhameysto dugsiga sare. ciwaankiisu waxa weeye marka Soomaali ahaan loo turjumo dhibaatooyinka ardaydu la kulmaan marka ay galayaan jaamacadaha. waxaan ku faraxsanahay boqolkiiba 95 inaad tihiin dadka caawa fadhiya goobta quruxda badan dad dugsi sare sanadkan ka baxay oo ay anfacayso waxaan caawa halkaan yaalo wuxuu yahay. runtii sababaha u qoray waxaa ka mid ah cilmi baaristan ama u sameeyay markaan arkay arday badan oo Soomaaliyeed arday badan oo reer Puntland oo la dhibaatoonaysa habkii ay u gali lahaayeen jaamacadaha. cilmi baaristan oo ku qotonta habka ugu wanaagsan uu ardaygu ku kala xulanayo maadada uu rabo inuu jaamacadda ka barto ayaa Garowe lagu soo bandhigay. su'aal ahaan oo kale haddaad weydid qof mas'uuliyadaada qabto oo waalid aad weydid ma aha inaad isdhigatid waa inaad mas'uuliyadda waalidka qaban lahaa iyo mas'uuliyadda naftaada labadaba qabataa. macnaheedu waxaan ka wadaa mas'uuliyadda laba aba inay saaran waxaa loo baahan yahay inaynu isu dhisno oo aynu taxaddar fiican ka sameeyno jaanqaadka. waxaa kaloo jirta oo caqabadaha laga haysataa waxaan baranayno maxaan baranaa runtii waxaad moodaa 12 sano marka sanadkan laga hadlaayo in waqtiyada qaarkeed yani muhiim ahayn bayna xataa iskuulada qaarkood dadka sababta ay tahay qof aan la isbaraynin waa dhibaato 12 sano baad wax baranaysa ismana ka baray isma garanaysid aqoonta lagu guray ha noqon weer falka ka daloola wax soo celin dadka ku baahan. aqoon-yahanada wax ka dhiga jaamacadaha iyo macallimiinta dugsiyada sare ayaa sheegay inay tahay markii ugu horeysay ee la soo bandhigo buuq qeexaya sidii uu ardaygu u kala xulan lahaa kulliyadda uu rabo inuu jaamacadda ka barto. waxaan bartaa bilisiba familiga ka bixin kara ma barat intaas ayaga ma aysan jirin daafic iyo wax ifahansiye war waxaan u baahan yani qudradda awoodda aan leeyahay cid ima fahansiin wala yaa meel kale aan kaga fiicnaan lahaa in badan sida xaqiiqada ah laakiin aan ogaaday waqti aanan waxba ka noqon karin. marxaladda aad ku jirtaan hadda dugsiyada sare waa marxalad aasaasi ah yani waxaad dareemi kartaan koowaad baa ahaydeen dhar baa la idin geliyay mucayan ah jadwal maadooyin la dhiganayana waa la idin soo dejiyay dugsi dhaxaa u soo gudubteen dharkii baa la idinka bedelay haddana maadooyin cusub baa la idin soo dejiyay qofna option iyo choice ma lahayn. dugsi sare timaadeen waxaa filayaa alxamdulillah iskuulada qaarkood hadda inay kala saaraan qofkaba artist raba iyada laftigeeda waa bidaayo fiican. qabada baa hortaagan ardayga markuu soo baxo oo waa ku bariyo oo la adigu iswad lagu yiraahdo oo uusan wax lahayn loo soo garmayo laakiin arday la soo dhisay lala soo dadaalay la yaqaan waxa uu yahay waxa uu ku fiicnaa la garanayo baahida haysan la garanayo marka wuxuu toos u abaaraya fiilkiisa ku haboona. laakiin maxaa xal ah problemkii maxaa sababay koosaskiisu waa maxay soo ahaan kala buuga waxa ka helaysaa jaamacadda markaa galaysid inaad problem wajahadin wixii sababay halkaan bay kugu qorayeen. waa barnaamij ka mid ah barnaamijyada ugu muhiimsan oo loo qabto ardada ka soo baxda secondariyada. barnaamijkaas dadka haya dad naga aqoon badan maaha laakiin waa dad dareemaya lahaansho waxay tahay. Ayuub Cabdirasaaq Maxamed raadiyaha iyo telefishinka dowlad goboleedka Jubbaland magaalada Garowe.